waxaan oo bilaabmaya shirkii jaaliyadda Soomaalida Ethiopia ee waddanka Finland oo la kulmay 16 guurihii xisbiga dimuqraadiga Soomaalida Ethiopia kaasoo ka wada hadda hawl baahan oo madaxweynaha kililku uu ku marayo gobollo kamid ah waddanka kuwaas oo loo sameynayo biyagelin iyo arrimo amniga la xiriira. marka insha Allah waxa shirka noo bilaabi doona oo noo furfuri doona mudane Maxamed Dayib kusoo dhawo Maxamed. dhammaan waxaan u mahadnaqayaa kasoo qaybgalayaasha marwooyin iyo mudanayaal aad baad u mahadsantihiin ajiibka aad ajiibteen xafladdan idinku martay qaadnay inaga ay tahay dib waxaan wada leenahay waxaan halkan maanta halkan la iskugu yimid inaan taageerno dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia horumarka ay ka wada gudihii iyo safarka oo madaxweynuhu ku marayo gobolada qaar iyo siideynta maxaabiistii ayaan ku taageeraynaa. haddana waxaa noogu xigi doona gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida Ethiopia mudane Maxamuud Ciwal فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore waan idin salaamay waxaan idinku salaamay salaanta islaamka ayaan ku salaamay inta kadib marwooyin mudanayaal culimaadudiinka dhalinyarada odayaasha caaqiliinta dhammaantiin waa salaamantihiin salaanta islaamka ayaan idinku soo salaamay kasoo qaybgalka xafladan aad kasoo qayb gasheen jaaliyadda Soomaalida Ethiopia ee Finland sharafta ay mudan tahay iyo dhammaantii sharafta aad mudan tihiin baa kasoo qaybgalkan waad ku mahadsantihiin waxaana idinku tahaniyadana insha Allah guul iyo barwaaqo inaynu ku sii wada socono. haddaan u soo noqdo shirka maanta halka la isugu yimid ee jaaliyadda Soomaalida Ethiopia ee Finland waxa weeyaan taageerida xisbiga waddanka u taliya xisbiga shacbiga Soomaalida ee Ethiopia oo 16 jirsaday bishan 3deedii ayna hadda ku jireen maanta 23ka ayay 16 sano u dhamaatay xisbiga taageeridiisa maxaabiistii faraha badnayd ilaa 800 ee TV-da ka daawanayseen siideyntoodii ayaa lagu taageerayaa. waxa kaloo lagu taageerayaa madaxweynaha Cabdi Maxamuud Cumar iyo kabinetkiisa dadka la shaqeeya iyagana waan ku taageeraynaa. waxa kaloo aan mashaariicdan ku taageeraynaa hawlahan meesha ka socda oo wadamada oo dhan jaalidaha jooga ay ku wada taageerayaan insha Allah. socodkii ugu dambeeyay ee ahaa biyo nabad ee ka bilowday gobolka Faafan ka bilowday xarshin lagu marayay ceelasha dhaadheer ee biyaha maartay fogyahan sida ka xarshin oo kale 500 iyo kalkooska mitir hoos loo qoday maxaan ku raahdaa meesha la yiraahdo oo kale habaar waalid meeshaas oo aad kol meel oo mana ahay haddaan xarshin ku yar noqono xarshin waxa uu sokeysay markii hore biyaha aan webiyada ayuu ka soo guursaday. gabadhu waxay u baratay meel ay biyaha dharka ku meedhato 24 saac ku dabaalato oo biyaha iskaga dhex jirto. nin baa markaa ninkii soo guursaday arooska ahaa ayaa wuxuu u dhaamiyay jigjig u dhaamiyay 4 maalmood ayaa isku qaadatay socodkii. maalintii shanaad buu yimid. maalintii shanaad markuu yimid qofku wuu cagajabayay marka intaas oo dhan socdo marka qofka waa la ridi jiray si uu ma fadhiisan karayo. ninkii wuu seexday dhaankii baa laga furay macalkii haamihii baa awrkii laga furay. gabadhii arooska ahayd dharkii ninka iyo dharkeedii laba gabadh aroose ayaa waxay istiri 4 haamood ku dhaq. 4 haamood markay ku dhaqday ayuu hadhow soo kacay markaasuu nabiyeysay markaasay tiri biyo ma hayo. markaas maxaa ku dhacay markaasay tiri dharkaaga iyo kayga yaalan ku dhaqay biyihii waxba ma hayo. waa 4 maalmood meeshii loo sii socday. gabadhii markaa arooska ahayd wuxuu dadku isugu yeeray gabadhi waan furay warqadeeda laga qabto. gabadh dambe oo webi laga soo guursadayna yaa meesha la isku keenay buu yiri sababtoo aan ma fahmaysan gabadhu dhibaatada lagu jiro iyo waxan habaar waalidna waxa ahayd meesha qof Ilaahay habaar oo meesha iyadana tagi karayay oo biyo u doonanayay. marka
biyahan hadda dawladdu iyo xukuumaddu ay wado qof dadka bini'aadanka asalka aasaas waxa weeyaan hadduu biyo waayo dee nolol ma helayo noloshoo dhan way isku xidhan tahay marka hadda sida gobolada Faafan iyo maaragtay Jarar oo magaalada Dhagaxbuur ay u tahay gobolka Jarar magaalo madaxda waxa lagu mareeyay oo biyaha lagu geliyay waxay ahaayeen gunagado oo lagu furay mashaariic meelaha qaarkood ba waxa la furay 30 barkadood gunagado oo kale waxa weeyaan bulaala ayaa ugu sokeysay biyaha ayaa ugu sokeeyay hadda ayaa biyo riiga loo furay wanaagsanaa maxana marka laga soo tago garowo oo kale ilaa waxa loo furay meel habardaan oo maartay biyaha baliyada waaweyn ee la xidho intaas oo dhan marka la soo maray dadku bini'aadankihi waxa ay wax ku helaan faa'iido ku gaaraan waa marka biyo aad heshid marka kadib baad noloshii kala raadsanaysaa haddaadan biyo helin nolosha halkaas ku dhamaanaysaa marka biyihii jidadkii waxbarashadii isgaarsiintii noloshii bayska ahayd oo dhan baa bilaabantay waa muddo 3 sano ka yar awla hore waxaa jirtay magaalada Dhagaxbuur oo kale gabar waxaan ogahay oo garanaya 7 ilmood oo ka raajisay uur bay lahayd uurkii markay lahayd ilmihii baa gacanta soo riday gaadiidna ma jirin jigjigiya Dhagaxbuurna waxay soo jiraan waa 165 kilomitir Hargeysa iyo maaragtay iyo Dhagaxbuurna waa intaas oo kale jigjigiya iyo Hargeysana waa intaas oo kale waa triangle weeyaan intaasi marka gabadhi markay gacantii soo riday intii maaragtay dhakhtar qalliin sameynayaan markaa ma joogin jigjiga ugu sokeysay intii maalintii iyo wixii la raadinaya baabuurtii iyo wixii baabuurtii basaska ay ambalaastina hore loo gubay intii wixii la raadinayo qolada mucaaradka gubtay intii la raadinay baabuurkii marka jidnaba jirnada wuxuu qaadanaya jidku rafweyska ahaa intaas oo saacadood 12 saacadood wax ku dhow 5 saacadood oo kale qaadanaya marka barqadii laga bilaabo gabadhii marka la geeyay jijiga la geeyay isbitaalkii saalo dhiga dhakhtarkii loo diyaaray qalliinkii gabadhii nafti baa ka baxday ilmihina uu ku dhintay iyadina way dhimatay caruurtii halkaas ku rajisay laakiin maanta waa alxamdulillah isbitaalkii Dhagaxbuur wuxuu leeyahay qalliinkii oo dhan buu leeyahay kii jijiga waa sidoo kale wixii ay ku asqali waayaan jijiga isla markiiba la keenaya waxayna qaadanaysaa meesh intaas saacadood qaadanaysay hadduu baabuurku xoog u socdo waa 2 saacadood ama ka yarba waa 165 kilomitir ma badna baabuurka laami oo cusub saaran waa fahmaysan intuu yahay marka xukuumadda waxa soo faa'iido qabatay ayaynu ku taageeranaa maanta horumarka gaarsiisay waxa kale oo maaragtay jiro oo halkan kaga hadlaynaa mashaariic soo socota hadda insha Allah kullu waxay noo iman doona oo shirkeenu hadda kullu aynu u balansanahay maanta waxa weeyaan bisha shanaad 3deeda ayaa waxa imanaysa safaaradii Scandinavian ka u qaabilsanayd ee Finland deganeed ba halkan inoogu imanaysa oo inu shir la leenahay waxay inoo sheegi doontaa marka sida kaararkii maaragtay dhalashada qofku inuu 2 jinsiyadiisii hore iyo tan wadanka ka qaato waa dadka dhalashada leh marka kaararkii oo yar hakada waa hor wala bixin jiray way inoo sharaxi doonaa kullay waxa kale keenayaan oo qorshuhu ku jira markii hore wuxuu ahaa in ardi sababo oo kale laga bilaabo dadka haysta baasaboorada waaweyn qofka isagoo hadduu baasaboorka yar haysto dhalashadiisa weli muu bedelin maalintuu doonu kan iska tuuraya kiisu qaadan karaa isagoo kuma jira kaasi isagoo waa nin maaragtay u dhashay Ethiopia Soomaalida degan waa nin u dhashay marka qofkan dhalashadiisii bedelay kaarkan ayaa la siinayaa 5 sano ku dhacaya caruurtaada waa geysanaysaa 5 sano way ku soo joogayaan maalinta doonta soo noqonaysa waxa la caawin kugu socda ma jiraan marka kaarashaas oo yar hakaday awgoodna waa la inoo sharaxayaa mashruuc kale waxa jira aha in arid sababo laga bilaabo oo guryaha dadkan la siiyo dhul la siiyo dabeetana dhulkii aad u adeysatid 30% oo kale iska hormarisid inta kale lagu dhiso marka madaxweynayaasha deegaanada oo dhan baa la isugu yeeray waxa la yiri maartay deegaan walba kilil kasta ha bixiyo baa dhulka marka hadda kulay waxa la go'aamiyay in dadka laga siiyo diri dhabo oo kale maxaan ku raahay jigjigo oo kale Dhagaxbuur oo kale Qabridaar Goday ilaa Wardheer oo kale marka mashaariicda saasa dadka maalgelinta u raba inay wadanka maal gashadaan si fiican baa loo soo dhaweynaya ama Soomaaliha ahaadaan Soomaalida walaalaheena xagga ku dhalatay degan ama inaga maaragtay wadanka u dhalashay baa aanu ahaane waxa weeyaan mashaariicdaas waa la inooga baahan yahay wadankeena horumarkiisa inaynu ka qayb qaadano
waxa kaloo laynooga baahan yahay oo safaaraddu lafteeda aad u soo dhaweynaysaa dadka maaragtay khayraadka wadanka ka soo baxaya dadkii maaragtay suuq u raadin lahaana waa la rabaa sida maxaan ku idhaahdaaye xoolihii bunkii waxaasoo dhan waa loo baahan yahay in maaragtay suuq loo raadiyo waa loo baahan yahay dadku inay horumar sameeyaan oo ganacsi samaystaan guryihii iyo warshado inta laysu tago la samaystana waa loo baahan yahay waxaa kaloo markaa arrinta ku jirta oo aad iyo aad iyadana muhiim ah qofkii garanaya dad ama finshoo cadaana oo raba inay wadanka maal gashadaan iyagana waa la soo dhaweynayaa dadka Soomaalida gaar ahaan idag wax alla wixii meeshay mari lahaayeen maaragtay wadanka maalgashi u rabana way ka sii xag jiraan iyaga si gaar ah loo soo dhaweynayaa marka waxaan idin leeyahay on hadalka ku soo gunaanadaya walaalayaal waad mahadsantihiin shirkaas fiican baa inoo soo socda wax walba oo qof walba ha sii diyaarsada arrimihiisa ha dhowto oo gaarka waxa uu raba inuu samaysto haddii koox la isugu tagayo oo shirkada la samaysanayo haddii aad kaligaa isku filan tahay intaba waxaad dad geynaysid mashaariic geynaysid haddaad urur geynaysid wadankii wuu inoo baahan yahay sida horumarka looga samaynayo ayuu maaragtay innaga inaan horumar u samayno ayuu loo baahan yahay nabadgelyada hadda meel bay gaadha meel fiican bay maraysaa waxa hadda loo soo jeedsaday waa noloshii kale waxbarashada waa aragteen jaamacadda jigjiga oo kale ilaa waxa weeyaan dowladaha Soomaaliya sida Somaliland oo kale Puntland oo kale gobolada koonfureed oo kale intaba waxbay ka bartaan dhakhaatiirtii baa laga bartaa injineeriya laga bartaa scholarship baa la siiyaa waxa weeyaan dadkii awal hore aan ku tiirsanaan jiray maanta inaga inagu tiirsan yihiin sababta hadba meeshii nabadgelyo ayaa loo baahan yahay wadankii Soomaaliya oo dadkii waxay dhisanayaan wadankiiba maal gashanayaan sababta Ethiopia waa intaas oo milyan weeyaan suuqa kaliya hadda la isku halaynay waxa weeyaan waa Ethiopia waxa weeyaan arda sababa dadkii si gulgalaya gulgal waa taqaanaa baan u malaynaya waa meesha aad habeenkii u sii hooynaysay meesha kale maalinta kale u tagtid marka waxa weeyaan dadkii oo dhan baa saa u socday inaga waxa laynooga baahan yahay fursad baynu haysanaa chance baynu haysanaa farkaliya fool ma dhaqdaa la yiri aynu gacmaha isqabsano intii isku kalsoonba ha samaysato shirkad ha samaysato wadanka maalgashi ha samaystaan hadda waxaa jira dad halkii inala degan oo guruhu isugu tagay oo dhalinyaro waxay ka dhisayeen jigjigo hoteelo 5 dabaq ay ka dhisayaan dhulkii waad helaysaa dhul dawladdu leedahay baa lagu siinaya laguma siinayo dhul dad sharci uu leeyahay waa dhulka dawladdu leedahay dadka la siinaya ma aha dhulka dadka shacabkii leeyahay ma aha yaa loo qaadan qof shacab gurigiisa lagu siinayo ama booskii lagu siinayo waxa weeyaan dhul ay dawladdu leedahay sida xiriir ciidamada militariga oo kale ayaa laga qaaday dhulka marka meelo kale la dejiyay waa laga gaday dhulkaas oo kale ayaa dadka lagu soo dhaweynaya sida jigjiga dhagaxbuur qabridaar oo kale waa dhulkiiba marka loo baahan yahay dadka in loo qaybiyo marka walaalayaal aan ku soo dhawaano wadankeena aan maal gashano samarkii oo kale waxaan samaysan karnaa inaan caruurahayna u dalxiiskayno oo noogayna meesha ayaanti dhawayta lagu qabanaya bishii hore qoomiyadaha oo dhan maxaan ku idhaahdaa qoomiyada Ethiopia oo dhan ay isugu yimaadeen ee lagu wada hadlayay guryihii la dhisay oo dhan waa diyaar dalxiis baynu u tagi karnaa wax dhibaato ma jirto Hargeysa la taa qof walba meesha marka waxaan ku soo koobaya hadalka aynu boorka iska jafno aynu isku maaragtay isgarabsano aynu maalgashi iyo wixii wadanka aynu u qaban karno aynu qabano inaguna aynu ka faa'iideysano waa chance meesha waxa yaala horumar dhaqaale yaala waa dhul iska dihin oo maxaan ku idhaahdaa weli aan sida wadamadan kale tegin marka adduunkii oo dhaqaaqaas u soo jeesaday aynu meesha yaani naga faa'iideysanay hadhowto haddaynu orodno waxba ma qaban karno wassalaamu calaykum waraxmatullah بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan dadweynaha sagaalka gobol deegaanka Soomaalida Ethiopia ku soo jeedo dhan oo halkan ku dhan oo aan filayo inayna jirin gobol aan isdhihi karo gobolkaas ka maqan sagaalkii gobol oo deegaanka uu lahaa waa idin salaamayaa run ahaantii shirkan maanta wuxuu ahaa shir lagu taageerayo horumarka deegaanka ka socda aniga مثلا haddaan tusaaleeyo idin siiyo dhulka waxaan tegay 2006 2013 bisha 12 waan tegay oo jigjiga iyo aagaas waan maray maxaa u dhaxeeyay farqiga u dhaxeeyay muxuu ahaa 2006 iyo 2012 run ahaantii farqiga u dhaxeeyay waxa la dhihi karaa farqi aad u weyn buu ahaa
anigu waxaan ku degay meesha la yiraahdo dirdhabe kadib baa waxaan aaday meesha la yiraahdo harar markaad ka soo baxdo oo aad keelaaga harar soo dhaafto ama controlka harar 2 ama 3 kilomitir qiyaastii waxaad gelaysaa dhul geeda gaagaaban leh oo astaantii dadka Soomaalida lagu garan jiray isla markaas haddana waxaa bilaami jiray dhul dhagxaan ah oo aan wada lahayn oo qacqub ah oo sidaas adiga waxaad ku tagaysaa jigjiga waliba baskan saarnaa wuxuu ahaa bas ka samaysan kuraastiisa bir buu ahaa markuu boodo oo dhulka ku dhaco waxa way caloosha meesha ugu dambaysa ku xanuunaysa haddaan tagay sanadkii 2013 bishii 12aad isla wadadii baan maray dhagta baan ka hayay wadooyinka waa la dhisay biya la geliyay wax baa la geliyay laakiin waxaan rabay in isha macallin ay noqoto run ahaantii harar markaan marayo oo meesha ay calaamadaysaneen aan marayo baa waxa igu soo baxay laami aad u qurux badan oo madow oo sida Finland oo camal ah dhaxdan calaamadihii loogu talagalay inay ku kala qaybiyaan u kala qaybsan qalbigu ii tagay sidii baan ku soconay sidaan jigjiga ugu galay waxaan u malaynayaa saacad iyo wax yar bay ahayd saacadii 20 daqiiqo ahayd iyo saacadii 25 daqiiqo intaas ugu dhaxaysay wali horumarkii waa loo baahan yahay gobolka inuu ka dhaco oo way bilaabatay laakiin wali dhamaystir maaha adigu 2006 haddana markaan ka tagay khalaaf iyo goday waxay soo jiraan 90 kilomitir 90 kilomitir waxay u qaadatay 5 saacadood waa 90 kilomitir gaariga 30-40 ka badan lagu wadi karo waa marshada labaad 3 hadii la galiyo bas waa in hadana dib loo soo celiyo marka waxa weeye waxaan aad u taageeraynaa madaxweynaha dowladda deegaanka in maaragtay kabinetkiisa iyo dhammaan inta jecel nabadda inta jecel horumarka iyo inta jecel inuu gobolkaas ku noolaado nabadgelyo haddii aan nabadgelyo la helin horumar ma jiro horumarka nabadgelyada ku xiranta waxbarashada nabadgelyada ku imaataa run ahaantii hadda markaad jigjiga tagto waad yaabaysaa jaamacadda 12 kun ku xaraysan waxaa kaaga sii daran maqribka haddana markuu saa u dhaco waxaad arkaysaa wiilashii iyo gabdhihii iyo dadkii oo dhan oo wada cararaya oo buwaag wada wato oo ah birabaadkiya la aadaya nabadgelyada socoto waxaad ka baqaysana ma jirto marka anigu intaasaan hadalkayga kusoo koobaya hadalkan waa idiin dhaqaalayna maadaama aan markii hore aan raagnay marka waad mahadsantihiin mudane cabdikhaaliq umaadka jaaliyadda Soomaalida Itoobiya Finland taageerada xisbiga dimuqraadiga ee Soomaalida Itoobiya horumarka iyo nabadda socdaalka madaxweynaha iyo loogu magac daray biyo nabad bacda salaan waxaan rabaa wax yar inaan idiin kormaro ujeedada waqtiga aan joogno ee Itoobiya damaceeda ah wixii aan ka soo fahmay shirkii aan ka qayb galay diaspora policy-ga Addis Ababa oo ay ku idlaayeen dhammaan waaxyaha kala duwan qurba joogta adduunka dacaladiisa ka timid ilaa iyo Talaabiib Latin America adduunka dhan shirka policy-ga diaspora Ethiopian policy-gu wuxuu ahaa horumar siday ku gaari lahayd Ethiopia sidii qowmiyaduhu ayagoo siman oo qowmiyadna qowmiyad ka dambaynin waxba aadan magan uga ahayn qofna qof walba xuquuqdiisa uu asagu ku heli lahaa hadday biyo xidheen tahay horumarka Afrika oo dhan inaan ka qayb qaadanay ahayd hadday tahay mashaariic aad fulin tu shakhsi tu hay'adeed tu ururo gaara tu dawli ah waxaad meeshan ka arki doontaan bugaagtii iyo ciwaanadii ay bixinaysay wasaaradda arrimaha dibadda ugu talagashay in ay gaadhsiiso policy-geeda adduunka dacaladiisa iyo jaaliyadaheeda policy-ga ninkii qaatay oo qofkii ku qanca baa wax qabsanaya innagu haddaan nahay jaaliyadii Soomaalida Itoobiya waan ku qanacnay ilaa waqtiga aynu asaasanay ilaa maanta dad badan oo reer Finland maalgashi ka sameeyay gudaha ururo ka furtay samafal ah isku day wada damac wada haddana
tiibaan rabnaa inaynu taageero u sheegnana u caddayna dadka wariyaa raba haddana mar labaad wariyaa diyaar ah oo dadkiisa iyo dalkiisa wax u qabanaya yaa caafimaadka nabadda iyo horumarka waynu isla qaadanee biyaha caafimaadka iyo xuquuqda kale ay jaaliyadda xaqa u leedahay yaa qabsanaya oo u socda taas weeye midda aan raba inaan idiin siiyo alfaguro waxaa taa dheer qofku markuu xuquuqda raadsanayo waa inuu ku qancaa shayga koowaad oo ah in la isla qaato qofku inuu dadkiisii nabadgeliyo waxna u qabto markaad nabadgelyana lagaa helo waxqabadna u diyaargarowda xuquuqda kale oo dhan albaabkeeda kuu furmaya kow waxaad heli xuquuqda jinsiyadda ama waxaa la yidhaahdo Ethiopian diaspora ID cardka oo xuquuq kuu siinaya 5 sano maxamuud baa idin caddeeyey inaad fiisa la-aan biduuni shuruud waddankaaga joogto caruurtaada geysato xuquuqdaada aad si buuxda wixii aad ku qabsan noloshaada shakhsi iyo ganacsigaaga kuu fududayso waxaad heli oo kuu dheer in aad dalka gudihiisa ka hesho kolkaad halka ruud kaa qabsato shirkadaha wax dhisaya dowladda dhulkii ku siinaysa iyo lacagtii oo aad la xidhiidhayso bangida iyo wasaaradaha ay khusayso dowladdu ay dhisayso adiguna aad heshiis galayso si fudud ama qurux badanna aad ku dhammaystiraysa lacagta waxyaheeda dambe xuquuqdaadina aad ku helayso qofku hadday shirkadi dhisayso guryo waa guryo isku rarana sidii abaad timanti wax qayb baad gadanaysaa haddaad rabto inaad dhul bannaan dalbatana dhulka bannaan waa inaad lacagtiisi haysato aad u dhisanayso oo adaa xor waa inaad intaad meel bannaan qaatood contract geliso rag la heshiiso aad dhisato laakiin qofka dhulka bannaan qaadanaya waa qof dhisan kara inuu yahay inaad iska dalbato haddana habsaamiso dalka iyo dadka ma aha waa inuu qofku jeebkiisa lacagtiisa ku tashado si uu ku keena isaga ay u taalla waxaa intaa dheer waxyaabaha sii xuquuqda ee sii hoosgalaya ururka hoyooyinka taageerada ay siinayaan ee looga baahan yahay ururka dhallinyarada membershipka oo asna leh caddaymo gaar ah oo foomkiisii aan idin qaybin doono haddii la idin gaadhsiin doono oo qofku ay shuruud u tahay laakiin inuu asalka helo xuquuqda kaarhka ID card inuu jinsiyadda waddanka aan ku noolnahay Finland waddankeenna uu haysto markaa kadib buu halkaa usii gudbaya laakiin qofku isagoon halkaa gaadhin oo jinsiyad kale lahayn ma aha kaarhka yellow kaarhka xaq ma yeelanayo waa heshiiska ay dowladdu charterka ay ku saxatay waa buugga heshiiska federaalka ama qofka xuquuqda siinaya oo caddaynayo intano documenti ah oo caddaymaheedii wata waxaan idinku soo ururinayna waxaa weeye inaad horta fahantaan inayna jirin qof ibni aadam ah oo idinkale dadkiinni iyo dalkiinni waxtarkiisii sida uu madaxweynuhu dharaari habeen ugu soo jeedo dowlad deegaanka soomaalida Ethiopia mudane cabdi maxamuud cumar kabinetkiisa wasaaradaha kala duwan shakhsiyaadka waxgalka ee si gaar ah u danaynaya sida ay u fikirayaan dharaari habeen u soo jeedaan ma raba inaad u soo jeedaan idinku halkan jooga si dadkiina baahida ay qabaan iyo gabdhahan dhakhtar bay ku dhinteen wada la'aan bay u dhinteen wixii laga koray ma wixii kale in meeshiisii aan gaadhsiinay inagu qaybteena dumarka hooyooyinka guryaha intay ku jiraan waxay rabaan inay iska la rabo wax la dhammaystiray u yimaado qarnigii ma aha waa qarnigay hooyooyinku gacanta intay la baxaan bannaanka soo istaagi lahaayeen xuquuqdana qaban lahaayeen odayaasha damcay in iyaguna dhahaan annagu raggii horaan nahay oo seexdaan war waxaad tabacdaan baa ilmihiin iyo dhaxal noqonaya idinkuna mar labaad gacanta qaada oo ha isdhiganina dhiirigelintaas iyo waxqabadka informationka idinku hayna waa midda Ethiopia way isbedeshay waxayna u guurtay horumar iyo nabad kusoo dhawaada dhammaantiin gacmo furan wixii su-aala way idin furan tahay una diyaar garooba la kulanka ambassadorka iyo safaaradda Scandinavianka kulankeeda xuquuqdii iyo wixii aan annagu aanan idin caddayn karin inaan ku qanacsanayn ayagaa idin caddayn annaguna waxaan diyaar idinku nahay inaanu idin fududayno wixii facility ah oo ku xidhan wasaaradda arrimaha dibadda iyo xidhiidhkeeda bismillaahi kariim idinkuna haddaadna taageertaan arrintaa waanu ka biyo keenaynaa haddaan gacmaha isqabsannana meel fog baynu gaadhaynaa 3 sano waddanku wuxuu gaadhay 3 sano kale kolkaan ugu darro 6 sano gaadho 6 sano meeshii aynu ka habsaan inaan gaadhsiinaan inoo ballana bismillaahi kariim taasna waa inaad nagu taageertaan dhammaantiin annaguna waa idinku taageeraynaa bismillaahi kariim
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. gabdhaha marwooyinka waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaanka bacdi waxaan meeshan iskugu nimid inaan taageerno dowladda deegaanka kilalka shanaad oon taageerayno waxqabadkeeda iyo horumarkeeda. waxaan idiin sheegayaa dhammaan jahlida kilalka shanaad 9 gobol dadka jooga in maaragtay anaan ka imid hadda muddo waxaan joogaa hadda 2 bilooda horumar la tiigsan kara inuu jiro. nacam ha oranayna berri shalay ayayna dhaaftay maanta wax taagan laanno ninkaan ogeyno waa inaad hadda inayneen u tagto. halkan waxaan tahaniyad uga dirahayaa mudane cabdi maxamed cumar iyo kaabineedkiisa dowladda kilalka shanaad iyo dowladda dimuqraadiga Itoobiya. salaan qiimo badan salaantaa ka bacdi walaalayaal hadal badan muxuu imaan dhammaan waxaan jeclahay in iga dambaysay inay timid waxaan ku taageerayaa walaalkay 2 eray oo hadda markaan imid igu soo bixiyay. waxaan leeyahay cabdowina maxamed cumar caaqilow maqal cabdowina maxamed cumar caaqilow maqal dadii adduunyabaaday kuga diirsadeen dadii adduunyabaaday kuga diirsadeen adna daruurasaan dayn barinayaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka dhammaan iyadoo mahad ay leeyihiin walaalada maamulka ah ay noo suuro geliyay inaynu isugu nimaadno shirweyne dhammaan xubnihii iyo dadweynihii ka soo jeeday deegaanka Soomaalida Itoobiya. markaynu dib isugu noqono taariikhda dalkaas iyo muddadii uu soo jiray waxaynu dareemaynaa in hal cudur uu ina haystay inagana dib riday oo dib inoogu dhigay ummadihii kale inaynu la soconno. hawshaasi waxay ahayd nabadgelyo la'aan. waxaynu ahayn goob had iyo jeer herdan iyo dagaalla ay ka socdaan. sideedabana haddaynan nabadgelya iman horumar ma yimaado. markaad usii fiirsatid caalamka qolo walba waxbay leedahay dhibaato haysata. markaan tusaale soo qaato nimanka Malaysia la yiraahdo waa dalalka imika South East Asia ama bariga fog ugu dhaqaalaha badan uguna horumarsan bay ku jiraan. niman Malay ah iyo niman Shiina iyo Hindiya baa ku wada nool. Malayga wada leh meesha laakiin nimankaasi barigii hore waxay ahaayeen niman caajisiin ah oo waxba qabsan karin. nin baa u soo baxay madaxdooda imika la tilmaamo ka mid ah mushkiladii haysatay buu daraaseeyey. caajisnimadii siduu uga saaro ayuu wuxuu soo saaray sloganis uu qoray ama halkudhag uu sameeyey oo ah Malay can do. that means waa maxay? qofka Malaysiyaankiihi waxbuu qabsan karaa. meel walba waa loogu dhajiyey. nimankii waxay noqdeen nimanka ugu firfircoon ee ugu wax qabsashada badan ummadda dalkoodina horumar gaarsiiyey. innaka markaa dib aynu isugu noqono dalkaas jiilal fara badan baa colaadaasi ay ka soo qaxinaysay. waxaan garanayaa oon imika aqaana dad 3 fac aan arag dalkaas kana soo jeeda dibna aan ugu noqon. laakiin imika aad moodid intan dambe hawlahan nabadgelyadu ay sugmeen. siyaasadan ah nabad ee ay haldhiga u noqotay maamul goboleedka maanta jira muddadii 5 sano ugu dambeysay horumarka ay ka gaadheen nabadgelyada waxay suuro gelisay in dhaqaalihii waxbarashadii caafimaadkii intuba ay kordhaan. dalka dhan waxa ka jiray hal cusbitaal oo laga yaabo magaalada Jigjigo kaliya inay lahayd
laakiin maanta waa 9 cusbitaal baa dalka ka jira oo mid uu yahay specialist iyo 6 goboladu ay leeyihiin iyo 2 kale oo cusbitaalada waaweyn ah oo iyaguna si gaar ah halka waxaad ka dareemaysaa muddo yar inay wax badan ku qabsoomeen waqtiyadii hore waxaa dhici jirtay in gobol kasta iyo degmo kasta maamul gobolada guddoomiyeyaashoodu ay jigjiga fadhiyi jireen oo la tegi kari jirin meelihii ay ka shaqaynayeen laakiin maanta tuulo kasta iyo qabalay kasta ninkii xukumayay waa joogaa taasna waxaa suuro gelisay nabadgelyada marka hadalkaygii waxaan ku gunaanadayaa ummadeenna waxa maslaxad ah aynu wax ku gaari karnaa waa nabad halkaas aynu joogno nabad baynu ku joognaa haddayna nabad jir lahayn maynaan joognen keeniina waa inaynu la jeclaanaa kana shaqaynaa qaabku nabad u noqon lahaa markaasaynu horumar gaadhi karnaa dhammaan waan idinku mahadnaqaya hadalkana waa idinku dheereeyey waxaan leeyahay aynu ku taageerno madaxweynaha cabdi maxamuud cumar iyo kabinetkiisa haldhegooda ah nabad inaynu kala shaqayno kana wada shaqayno ummadeennana uga shaqayno innakay maslaxadaasna uga baahi badan dadka halkaa ku nool innakaa uga baahi badan waayo meelaha aynu ku noolnahay inaynu dib ubadkeenni ugu celinno ayaa inoo dul saaran wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal waa idin salaamayaa shacabka meesha isugu yimid rag iyo dumarba waxaa kaloo salaamayaa dowladeena yar iyo ma yareen da-da yar ma aha dhalinyarada yar ama dowladda da-da yar leh ee dowladaha waaweyn nacam ka horumarsan ayaan salaamayaa madaxweynaha iyaga ku-xigeenadiisa dowlad deegaanka iyaga dhan baan salaamayaa inta waxaan hadda caawa meesha u imday oo kale wax yar oo gabaya oo ku saabsan hashan quruxda badan hasha waxaa la yidhaha maandeeq bismillaahi raxmaani raxiim waxaa gabaygaaya wuxuu yahay hashii aan u dalan doonayeen dibad u meeraayey diihaalka gaajada hashaan ugu dayoobayey doqon iyo damiir iyo hashaan nacab la daaweeyey daryeelkeeda awgeed hashaan door walba u jeeday doofaarkii fakada iyo hashow xayla daba joogay iyadoo dunuunicii ayayna dul joogtahay dambarkeedu waa kaa horoo maanta kuu timide ka durduura caanaha hadday darartay maandeeqe الرحمن الرحيم marka hore dhamaantiin maartay sharafta waayeel kale oday dhaqameed kale dumar kale dhalinyarta kale dhamaantiin ba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhamaantiin jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee halkan joogta aad baad u mahadsan tihiin isku imaatikan sharafta badan ee noo soo qaban qaabiseen aad nagu martay sharafteena annaga inaan idiin nimaadno oo idinkala qayb qaadano meel kasta oo dadka Soomaaliyeed joogaan horumar imaga gaadho waanu taageeraynaa waanu soo dhaweynaynaa aniga laftigaygu Ethiopia sanadkii hore aan soo maray kolkii horena waxaan soo maray 93 farqa u dhaxeeyay waan arkay waa faraq dee aan aqligaagu malaynayn ilaahay baa hirgeliyey inagu berigii hore deegaanka Soomaalidu wuxuu ku tiirsanaa dowlad weyn oo Soomaaliyeed buu ku tiirsanaa wixii 90kii ka dambeeyayna dibadaha looga soo wada baxay iminka waxaynu dadka Soomaaliyeed haddaynu nahay joognaa adduunka dacaladiisa jaaliyadaha iyo dadka aynu u tagnay waynu la dhaqanaa waxbaynu la qabsanaa dowlad deegaanka Soomaaliyeed dadka dhigana waxa looga baahan yahay dadka ay la joogaan dalka ay wax ku leeyihiin inay wax la qabsadaan horumarkooda ka shaqeeyaan sida halkan baa looga wada shaqeeyo marka anigu waxaan qabaa 80 milyan ee Ethiopia inay dadka Soomaaliyeed ee firfircoon ee hamiga leh halka degani ay isku dayaan sidii ay u hogaamin lahaayeen oo iga midhdhali lahaayeen inay dad Soomaaliyeed la wareegaan xukunka taana waxa keenaysa wada shaqeyn la sameeyo qoomiyadaha kale kala duwan aad baan u soo dhaweynaynaa horumarka dowlad deegaanka Soomaaliyeed uu gaadhay wixii wada shaqeynana waan la sameynaa waan salaamantiin السلام عليكم ورحمة الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا إله إلا الله إله بمعاد كريم سبحانه وتعالى أولا waxaan doonayaa mahad celiyo odayaasha iyo haweenka iyo dadka
indheergaradka culimada ee dadkan isu keenay iyagoo laga hadlaya aayihii degmadii iyo deegaankii aanu ka nimi ee waddanka Ethiopia. runtii waa guul aan la soo koobi karin maanta intaasoo dadkii deegaanka Soomaaliyeed iyagoo doonaya horumarka degmadaas halkan isugu yimi. marka waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa ragga madaxda ee odayaasha dacalkayga fadhiya arrintaa ka soo shaqeeyay. waxaan leeyahay khayrka idinka siiyo jazaakumullah. sidoo waxaan kaloo mahadcelinayaa madaxda dowladda deegaanka Soomaaliyeed ugu horeey madaxweynaha deegaankaasi safarka dheer uu ku jiro iyo horumarinta deegaankaasi uu ka wado. waxaan isagana leenahay Ilaahay ku garab galo. kolley Soomaalidu waxay tiraahdaa hadal nin badi muu dhameynayay in waxba ka tagin. waxa kaliya qado ku soo koobaya qodobkayga ugu dambaysiinaya waxa weeye waa laga hadlay siyaasadii degmada iyo deegaanka iyo wixii la dabaxsanaa. waxa si kaliya haray waxa weeyaan arrinta odayadu sharaxeen ay nimankaasi inoo sharaxeen ee kuwa iimayl inoo sharaxi doonaan waxaas lagu ah nabadaasna kuwa halkeen la joogay qaska wada iyo kuwa wadankii wadana inagu la dagaalamin ma helina nabad. marka waxaan ka codsan lahaa mudanayaasha iyo dadka ka soo qayb galay nabadiidka meelu jooga waa la dagaalano. wabillahi tawfiiq. assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. anuu maxamuud ciwil dadku sheegayo wiigayaa malatagino gabar loo guursan u dhahay wardaasaan hadda aniga ka mustaxiila ka imid deegaanka waxaa la yidhaha shabeellaa la yidhaahdo waxaa laga xukumaa meesha yidhaha marka waxba ku daari mahay webigii waa joognaa laakiin wuxuu rabaa wax soo saar waana dhulka keliyaho wax laga soo saari karo oo haddii xataa dadkaan maanta ay maal gashadaan aad iyo aad wax uga soo baxaayo. marka hadda intaynaan isku xirano annaga horta shirkaan maanta aniga shaqoreenba maanta noogu horeyso waxaan rabnaa marka in dagaalka deegaan oo Ibrahim sheegay sidiisiba in ururkan ay ku midaysan yihiin hawshiina ay wada qabtaan. anigu rag baan hadda kor sayno ninkaasaa jooga hadda meesha oo meel wada joognaan iyo asage. marka waxaan idiin sheegayaa haddii la isku duubnaado oo nabadgelyana la helo isku duubnina la helo wax walba waa noo qabsoomaya wax kasta waa noo qabsoomaya. laakiin haddaan isaga riixino oo aniga Cabdiqaadir la isriixno dad walba isriixno waxba noo hagaagi maayaan. marka inaanaan isriixin oo rag iyo dumarba gacnaha isqabsano oo dhulkeenni maanta waxaa laga yaabaa beri waa Sacuudi loo shaqo tegi jiro haddii dhulkeenna aan wax ka qabanno waa loo shaqo tegaa xaqiiqo waay qadcan waa wax. marka 7 daqiiqa la yiri meeshii warka hadda ma sii badin karo haddii yani dad baa ilale waana meesha waa laga baxaa 7 daqiiqa bacdi la yiri. marka waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. marka hore waxaan salaamayaa dadka walaalaha ah ee soo ajiibay shirkan quruxda badan aad iyo aad baan mataqaan anaha aan ugu mahad celinayaa anoo ku hadlaya kulley magaca jaaliyadda iyo maamulkaba. intaa kadib waxaa loo baahan yahay in aan garanno dareenka ah maadaama aynu nahay jaaliyadda kasoo jeeda deegaanka Soomaalida ee Ethiopia ee ku nool waddanka Finland inaan ogaano inaan nahay marka laga hadlayo diaspora dadka Ethiopiaanka Soomaalida dadka Ethiopiaanka ah ee ku nool qurbaha inaan nahay dadka ugu badan ee Soomaalida inay yihiin qowmiyadda Soomaalida. marka waxaa loo baahan yahay inaan qaadano hoggaankaas meel kastoo aan joognaba. midda labaad walaalihii mar dhow meesha ka hadlay ee haddii ilaahay ku roon yahay soo jeediya fikirka wanaagsan ee quruxda badnaa in jaaliyadda la ballaariyo oo dadka u dhashay gobolka ay ka wada mid noqdaan. jaaliyadda albaabadeeda way furan yihiin wax kasta oo wax dhisayana insha Allah tacaala waxaan diyaar u nahay inaan qaadano soo dhawaada hoggaankii mataqaana ka qayb qaata. waad mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ragga noo diyaari fadhigaan aad waxaan ugu mahadinayaa khiyaarta soo ajiibtay oo culamo iyo indheer garab leh iyo marwooyinka gabdhaha dhalinyarada siyaasiyiinta kasoo qayb gashay ee reer Finland. aad ayaan ugu mahadinayaa dareenkooda fiican oo waqtiga nasashada lagu jiray ay u yimaadeen halka ayagoo dareenkooda cabiraya
in uu dalkii laga hadlaya meeshana laiskugu imaanaya ay tahay waxa laga hadlaana dhulkii aan ka nimid ay tahay. dhulku dadka iyo dhulku ma kala maarmaan, waayo qofka xibnihiisa ma kala maarma. hal far hadda ay xanuunaysa dhulka kale kama saaxan kara. qofku dhulkiisii hadday dhibaato ka jirta nabad uma saaxan kara, waa walwalaya. war kama taagno dalkeena Itoobiya maanta, deegaanka Itoobiya ee Soomaalida ay degta ee kaliilka shanaad la yiraahdo, in sidoo Itoobiya ay dhulkaas u qabsatay maanta nolosha uu marayo oo kale wiligiis uu soo marin inay tahay, oo nolosha maanta uu maraya ay nolodii hore ka fiican ay tahay, oo maamuladii hore ee soo maray maamulka maanta soo ka jira deegaanka Soomaalida maamuladii soo maray maamulku uu fiican in uu yahay, uguna dhaqdhaqaaq badan in uu yahay, hadal kama taagno. waxaana ka xumahay kuwa carqaladaynaya hadda weli eena soo carqaladayn jiray muddo badan oo wixii ay qabteen ay inkaygu aad iyo aad baan u arkaa inay aad iyo aad arrintan u fiican tahay maasha Allah. weliba waxaan jeclaan lahaa inaan arrintan sii dardar gelino oon mar walba shirarkan oo kale qabanno. soo dhaweynaynaa. السلام عليكم ورحمة الله. fiican yahay jaaliyadda qowmiyadda kililka shanaad kulli wax ka maqan ma lahin aad iyo aad aan u fiicanahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم magacaygu waa Aragsan aad baan u faraxsanahay sidoo dhacay shirkisi ma sha Allah yahay dumarkii isugu yimid aad bay u mahadsan yihiin hooyooyinka waqtigooda qaaliga soo wada huray dhamaantood awlaadoodii ka yimid. waa maalintii ugu horeysay aan arko intaan jooga Finland jaaliyadda ka soo jeeda deegaanka oo isku timid aad baan u faraxsanahay. waad mahadsantahay. بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Tarax Daahir Ibrahim kana mid ah jaaliyadda dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay 100% sida shirku qiimaha lagu qabsoomay ee laga soo qayb galay haweenka dhalinyarada maxaan dhamaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay 100%. Assalaamu calaykum. waxaan hambalyeynaa madaxweynaha deegaanka kilka shanaad iyo wasiiradiisa xildhibaanadiisa iyo dhammaan shacabka ku nool magaalada Jigjiga iyo sagaalka gobolba. waxaan idin leeyahay guul guul guul. shirkiisu wuxuu qarsoomay si sharaf leh oo loo maleyn kareyn mar walbana waan sameeynaa hadduu Allah qadaro. sidaa assalaamu calaykum. Sheekh Maxamed dareenkayga aad iyo aad ayuu ugu wanaagsan yahay. waan ku faraxsanahay horumarka iyo nabadgelyada iyo shirkuna ugu qabsaday ma sha Allah. aad iyo aad baan ugu dhamaan waxaan salaamayaa ugu horeyn madaxweynaha Cabdi Maxamuud Cumar iyo waalidiinta iyo dhamaan dadka mahadsantiin. aad buu kacsan yahay. waxaan salaamayaa dawladayada wixii magacayga iyo muuqaygaba garanaya ayaan aad u salaamayaa. insha Allah bidnillaahi kariim waan imanayaa samirkana. magacaygu waa Hinda Daahir Ibrahim.